بسم الله الرحمن الرحيم sida aad la socotaan 20kii bishan December 2020 waxaa ka bilowday tartankii cayaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir magaalada caasimadda ee Muqdisho cayaarahaas oo si wanaagsan u socday ilaa maalintay bilowdeen ilaa maanta oo berri oo ah maalintii ugu dambeysay ujeeddada laga lahaana ay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay isdhexgalaan inay isku bartaan in laga soo xulo dhalinyaradii qaranka Soomaaliyeed magacooda adduunka ku mathali lahaa cayaaraha adduunka sidaa awgeed berrito waa final ama maalintii ugu dambeysay ee cayaaraha waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadweynaha Soomaaliyeed ka codsanaynaa in si deganaansho ah cayaaraha looga qayb galo nidaamka loo dhowro ciidankana gacan la siiyo ciidanka booliiska oo aanu ku amarnay inay gacan siiyaan oo la shaqeeyaan oo daadihiyaan dhalinyarada cayaaraha u imaanaysa ee tirada badan ee muxuu ahaa farxadda ay cayaaraha meelo fofog uga imaanaya in si nidaam leh in stadiumka loo galo lana shaqeeyo madaxda iyo booliiska si ujeeddadii laga lahaa cayaaraha loo gaaro oo ahaa in dhalinyarada Soomaaliyeed jir ahaan maskax ahaan iyo isdhexgal ahaanba inay dhismaan oo ay ka soo baxaan dhalinyaro mustaqbal leh oo dalkooda iyo dadkooda ka fekeraya oo magacooda wuxu bartay inay ka soo baxaan sidaas awgeed waa maalin weyn berrito waa maalin final ah waxaa laga yaabaa dad badan inay isugu yimaadaan oo meelo fofog ka imaanaya sidaa awgeed dadkaa tirada badan waxaan ka codsanaynaa oo u soo jeedinaynaa inay u hoggaansamaan awaamirta booliiska uu siinayo si nidaam leh inay u galaan si nidaam leh oo farxad leh inay cayaaraha uga qayb galaan marka ay soo baxayaan leh si nidaamsan inay uga soo baxaan ciidankana mar labaadaan ku celinayaa ciidanka meelay joogaan booliiska ee cayaaraha berrito la maamulaya mas-uuliyiinta cayaaraha u xilsaaran ee dalka inay gacan siiyaan shacabka Soomaaliyeed oo aan wax carqalada ayan meesha ka dhicin oo ay joogitaankooda laga dareemo meel walba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.